الرحيم kulankan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan xubnaha golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu ku saabsan yahay saddex qodob. qodobka koowaad xiridii la xiray sharci darrada ahayd ee la xiray siyaasiyiintii ka tirsanaa golaha badbaadada koonfur galbeed. qodobka labaad oo ah shir ay yeesheen golaha wasiirada koonfur galbeed iyo madaxweynahooda ay ku sheegeen inaan la shiri karin oo aan kaga jawaabayno. iyo qodobka saddexaad oo ah inaan qaban doono shirweyne oo ah wada tashiga aayaha iyo mustaqbalka koonfur galbeed oo waqti dhow la qaban doono. kulankan wuxuu ku saabsan yahay saddexda qodob. qodobka koowaad maalintii talaadada ahayd ee 12kii bishii 9aad 2017 saacadu markii ay ahayd 6 saac barqadii 6 saac duhurnimo waxaa magaalada baydhabo lagu rasaasiyey gaari ay saarnaayeen siyaasiyiin uu ka mid yahay nuur maxamed macalin oo ah wakiilka golaha badbaadada koonfur galbeed iyo maxamed nuur aadan cabdi oo ah xubin ka mid ah golaha badbaadada koonfur galbeed iyo cabdulaahi shilfow cabdi oo ah taageerayaasha golaha badbaadada koonfur galbeed. marka saddexdaasi siyaasi oo isla socda ayaa baabuurkii ay saarnaayeen lagu rasaasiyey. markii la rasaasiyey baabuurkaasi la xabadeeyey kadib waxay soo aadeen saldhigga booliiska si ay u dacweeyaan dadkii soo rasaasiyey. marka xabadihii lagu tuuray gaarigaasi waxay ahayn in ka badan 10 xabadood waxaana loosku dayay in lagu dilo mas-uuliyiintaasi. kadib waxay yimaadeen saldhiggii booliiska waxayna sheegeen sababtii loola dhaqmay iyo xabadihii lagu riday iyo in la deli lahaa bay ka sheekeeyeen. isla markiiba waxaa la yidhi ciidankaasi waxay sheegeen saldhigga booliiska in laga soo diray oo taliyaha qaybta uu soo amray oo lagu soo qabanayo iyaga. marka isla markiiba iyagii oo soo dacwooday oo lasoo rasaasiyey oo laisku rabay in la dilo oo haddana soo dacwooday ayaa la xiray. weli lama arkin qof laisku dayay in la dilo haddana soo dacwooday markuu soo dacwooday kadibna xarig loogu daro oo dilkiina ka badbaaday. marka sidaa daraaddeeda waxay xiran yihiin siyaasiyiintaasi oo aan hore u sheegnay uu hogaaminayo nuur maxamed macalin bukulow oo ah wakiilka degmada baydhabo ee koonfur galbeed golaha badbaadada koonfur galbeed. siyaasiyiintaasi waxay xiran yihiin 96 saacadood. qodobka 32 farqadiisii labaad xuquuqda eedaysanaha laguma hayn karo meel aan qaynuunka banaynin waana in 48 saac gudahooda la geeyaa garsoore. haddaba waxay xiran yihiin mas-uuliyiintaasi 96 saacadood oo ah 4 maalmood. 48 gudahoodan waxaa loogu talagalay in garsoore la geeyo. sidaa daraaddeeda waxay ku xiran yihiin sharci daro. waxaa lagu dili rabay sharci daro. marka waxaan rabnaa in golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu rabaa in loo caddeeyo sababtii loo dili lahaa mas-uuliyiintaas, sababtii loo xiray. 48 saac gudahoodana waxay ahayd qodobka 2 siduu sheegayo in garsoore lagu geeyo. laguma geynin. sababta loogu geyn waa in la soo caddeeyo. qodobadaasi waxaan ka rabnaa maamulka koonfur galbeed waxaan mar labaad ugu baaqaynaa dadkaasi inuu garsoore geeyo. ma dhahayn anaga hala sii daayo keliya, waxaan rabnaa inaan ogaano sababtii loo dili rabay iyo sababtii loo xiray iyo sababtay u xiran yihiin 48 saac wax ka badan. arrintaas jawaabteeda waxaan si degdega ugu sugaynaa maamulka koonfur galbeed ee uu hogaaminayo Shariif Xasan Sheekh Aadan. qodobka labaad golaha wasiirada koonfur galbeed iyo madaxweynahooda maalintii arbacada ahayd oo 11kii bishii 2aad 2017 waxay soo saareen oo shirkooda ay kaga hadleen inaan magaalada baydhabo lagu shiri karin, aan lagaga hadli karin dhaliilahooda, waxyaabaha iyaga laga tabanayo aan la sheegi karin ayay shirkii golaha wasiirada ku sheegeen. taasina waxaan kaga jawaabaynaa qodobka 24aad farqadiisii koowaad waxay sheegaysaa xuriyadda kulamada iyo banaanbaxyada. qof kasta wuxuu xor u yahay inuu sameeyo kulamo iyo banaanbaxyo ku salaysan hab nabadgelyo waase inuu wargeliyaa
hay-adaha ay khusayso marka qodobkaas ayay hareer mareen golaha wasiirada iyo madaxweynahooda Shariif Xasan Sheekh Aadan go'aamadii ay ka soo saareen wuxuu hareer marsan yahay qodobka 24aad farqadiisii koowaad marka sidaa dalaadeeda waxyaabihii ay yiraahdeen oo dhan waa waxba kama jiraan maxaa yeelay maadaama dastuurkii ay degsadeen iyaga ay go'aankooda ku qorteen ay hareer mareen hadalkooda waa waxba kama jiraan waayo qodobkaasi aan kor ku soo sheegnay ayay hareer mareen oo dastuurkooda ku saabsan taasna waxaan leenahay ciddii doonto waa shiri kartaa ciddii doonto fikirkeeda aqbali kartaa ciddii doontona waxay ka hadli kartaa waxyaabaha maamulkan ku halaysan yahay waa xol qof kastaba inuu fikirkiisa uu dhiibtaa waa sida uu qorayo dastuurka dowladda koonfur galbeed waa sida uu qorayo dastuurka dowladda federaalka ah waa sida ay qorayaan xeerarka caalamiga ah marka sidaa dalaadeeda dastuurka federaalka ah iyo dastuurka koonfur galbeed iyo xeerarka caalamiga ah way baalmarsan tahay qodobadii ay gaareen golaha wasiirada koonfur galbeed iyo madaxweynahooda Shariif Xasan Sheekh Aadan tan kale waa qodobka saddexaad golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu ilaamiyey ama uu qaban doonaa shir wada tashi ah oo lagu tashanayo aayaha iyo mustaqbalka gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaan rabnaa inaan halkan ku adayno in shirkaasi waqti dhow la qaban doono laguna qaban doono magaalada Muqdisho magaalada Baydhabo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee dowladda koonfur galbeed marka sidaa dalaadeeda waxaan u sheegaynaa dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha internationalka ah iyo dhammaan inta daneynaysa habsami socodka howlaha koonfur galbeed waxaan u sheegaynaa in shirkaasi waqti dhow la qaban doono laguna qaban doono magaalada Baydhabo oo ay ka soo qayb gali doonaan irgo ka badan 400 oo irga ah oo ka kala imaan doona gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya sida Baay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose marka sidaa dalaadeeda sida golaha wasiirada koonfur galbeed ay sheegeen ama laga soo wariyay maamulka Shariif Xasan Sheekh Aadan inay rabaan inay alqaladeeyaan shirkaasi oo halkan ka dhici doono oo ay reer koonfur galbeed ay ka tashan doonaan shirkaasina waxaa isugu imid dadka irgada ah oo gobolada ka kala yimid waxayna isugu jiraan siyaasiyiin aqoon-yahano ururada bulshada rayidka dhammaan qaybaheeda kala duwan sida haweenka aqoon-yahanada ganacsatada iyo culamaa u diinka dhammaan ururadaas bulshada ah ayay ka kooban yihiin dadka ku shiri doona hadduu ilaahay yiraahdo magaalada Baydhabo waqtiga shirkana anaga soo sheegi doona hadduu ilaahay yiraahdo marka waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah iyo dhammaan hay'adaha khusaysa international community-ga ah waxaan u sheegaynaa in sida AMISOM oo kale waxaan u sheegaynaa in ay ku talagaleen maamulka koonfur galbeed in ay shirkaas alqaladeeyaan oo ay qashqashaad ku sameeyaan si aan shirkaas u qabsoomin annaga golaha badbaadada koonfur galbeedna waxay ballan qaadaysaa inuu shirkaas dhici doono waqtigii loogu talagalay oo aan soo sheegi doono hadduu ilaahay yiraahdo laakiin waa waqti dhow haddii ay dhacdo wax dhibaato ay ka dhacdo shirkaas oo meesha lagu qaban doono wax dhibaato ay ka dhacdo waxaa mas-uuliyaddeeda qaadi doono maamulka koonfur galbeed oo sheegtay inuu ka hor imaanayo shirkaasi wabillahi tawfiiq raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa sayidina ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تكنتني سكوي دمانتين سلامتين شركة جرائد هل كان لو يمد كسمها قدوميها أهنا قدومي كحيان كقولها بدبادة يا آد فاهيي أنا وحاربا إنا لابد قضب أو قابا ولكن مهمة دودي له inaan ku daro qodobka xariga loo geystay odayaasha ka tirsanaa golaha badbaadada ee uu hogaaminayay Mr. Bukurow stationka markii hore isaga dacwo u tagay meesha lagu xiray markaa kadibna gaal shira loo gudbiyay taa micnaheedu horta waa in aad loo gartaa أو شريف حسن وشيء شريف حسن حتى أنا بدكين بارو شراي هذا هو شيء وماشي عليه الشركة الموقتي أنا له قامراي ماشي فريسني شعبك بيدو ويدي دناية
taayeeray gubaayeen saan meesha kugu geynay waa og tahay shirkaagaa lagu abaabulay maxaa markaa loola dagaalami waayo dadkaas loo xabadeyn waayo doorashadaada markay dhacaysayna 400 oo qof oo koonfur galbeed waxaa la isugu keenay hool qof walba waa la jebiyey subaxaas saasaad madaxweyne ku noqotay waxaa aragta annaga inaan tiraahdo ma jiri kartaan xataa ana yaa amaan ma yamshi hada alkalaam shariif xasan shirkaas waa la qaban doonaa wuu dhacayaa ka naxow nafta waa dalkan belaad gaarsiin weyne airboortkaad kusoo degaysaa diyaaradaad ku timaado tan kale tikidkaad ku noqon lahayd waa ku oon yahay waad bakongaraysanaysaa looma baahna dadka inta hadiid lagu sameeyo ilmi yar yar oo laga keenay moogi nairobi meelahaas laga keenay inay banaanada soo istaagaan oo yidhaahdaan sidii shabaab ula dagaalamaynaa war dalkaan ma ogtiin waxaa lagu soo maray dalkaan iyaynaa ogeyn baydhabo ma ogtihiin xaaladeed koonfur galbeed xaaladeed ma ogtihiin ka warrama shabeellada hoose ka warrama bakool ka warrama bay iyo tuulooyinkeedii danihiini aada annaga inta waxaan u nimid inaan toosino khaladaadka meesha ka jiro xildhibaano qaran baad hadiid ugu samaynaya dad siyaasiyiin aad hadiid ugu samaynaa dad dhalinyaraha la soo xirxiranaya dictaatoriyadaas waa laga baxay soomaali ma jirto cid laga yeelaayo male soomaalidana dhegaysanaysa ama midana daawanaysaa walaalayaal waxaad ogaanaysaan annaga shirarkeeni waxay ku saabsan yihiin toosin magaca la yidhaahdo xabad waxbaan tuurayaan mar horeaan meel dhignay mar hore 10 sano marka waa lagu dhow yahay meelahaas ka dhignay qofkii hadda ku hajabaayo qori baan wax shirar ku diidaya adduunku waa la banaabaxaya taageeraa la gubaya waxbaa la samaynaya waa la istaagaya laakiin kelimada xabad qofkii afkiisa ka soo baxdo isagaa diri rabaa dembiila ah ha lala socdo aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan rabnaa marka ugu horreysa inaan cambaareyno dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday hotel bakiin taasoo lagu soo xiray muwaadiniin oo ka mid ah golaha badbaadada waxaa foolxumo ah oo sharci darro ah in muwaadin meel u raadsaday cadaalad lagu sii qabto oo lagu sii xiro meeshii loo dacwaday saldhigaheed in muwaadin oo dacwo geystay oo la xabadeeyey markaas kadib la qabto oo la xiro isagoo dacwad raadinaya cadaalad raadinaya waxaan rabnaa meesha wixii ka dhacay waa wax qaab darro ah oo aan loo dulqaadan karin ku-tarigfalka awoodahana waxaan rabnaa wasaaradda cadaaladda inay arrintaas soo farageliso saraynta sharciga iyo ku dhaqanka sharciga cidna kuma takrifan karto awooddeeda iyadoo isticmaalaysa inay cadburiso muwaadin oo ka hadlaya arrimaha huseeya dantiisa iyo dalkiisa waxaan rabnaa wasaaradda cadaaladda ee dowladda dhexe inay arrintaas soo faragisho waxaa kaloo baaq aan u diraynaa hay-adaha ay khusaysa arrimaha bini-aadamnimada iyo hortalqoolka meeshan wax ka dhacay waa wax aan loo dulqaadan karin muwaadin u dhashay deegaanka koonfur galbeed oo u doodaya arrimaha ay khusayso danta dalkiisa iyo dadkiisa in isagoo aaday saldhig dacwo xabadeen lagu soo sameeyey haddana ay qabtaan ay yidhaahdaan qof buu u xiran yahay madaxweynaha koonfur galbeed sharciga badda ku qaban karaa sharci darro dadku ma qabsan karo meeshaas wax ka dhacay waa wax aan loo dulqaadan karin oo arrin cajiib ah wey waxaan rabnaa waxaa kaloo baaqa u jeedinaynaa taliska booliska soomaaliyeed meel ay dadka dhammaana ay u dhan yihiin oo loo dacweyn karo qof walba dacwo qabo miya mise meel ay shaksiyaad ay iska leeyihiin oo wixii raba lagu samayn kara miya taasna waa iga su-aal waxaan rabnaa taliska booliska soomaaliyeed in booliskan la isticmaalayo oo loo isticmaalayo in lagu gumaado ummadda reer koonfur galbeed ay soo farageliyaan waayo hadda dhacdada dhacday waa dhacdo qof dacwo wato oo cadaalad raadinaya meeshii loo dacwan laha waa saldhig haddii saldhigii ay shaksiyaad u shaqeeyaan oo cadaaladii si raba ay u bixin karin arrintaas nafteeda waa in ay wax laga qabto taliska booliska soomaaliyed waxaan rabnaa in si degdeg ah arrintaas usoo fargisaan waxaa kaloo rabnaa inaan ka hadalno dadkan waxa maxkamada la soo saaray malaha kaalshiraa loo gudbiyey marka in kaalshiraa qof laiskaga gudbiyo oo maxkamad iyo waxba aan la soo marin nafteeda waa arrin u baahan in wax laga qabto marka arrimahaasaan waxaan rabnaa dowladda federaalka
soomaaliya in arrintan koonfur galbeed ka dhacday ay faragelin kusoo samayso jawaab degdega waafin ay ka bixiso